السلام عليكم isbedel فيلسوف jarmal waxa uu leeyahay qof kasto inaga midahi wuxuu leeyahay dhaqan ama caado uu jecel yahay inuu bedelo kana taqluuso xataa kuwa hanka sare leh waxay leeyihiin caadooyin ay jecel yihiin inay bedelaan iminka daba aan ku weydiiyay sigaarka ma cabtaa ma tahay mid cibaadadiisa aan u gudan sidii laga rabay oo isku arkaa inay tahay mid gaabisa ma jiraan mushkilad adiga iyo qoyskaaga idin dhex taala ama xiriirka bulshada aad la leedahay jawaabtaadu ha noqoto haa ama maya waxaan ku xaqiijinayaa in dadka intooda badan ay leeyihiin caadooyin ay jecel yihiin inay iska bedelaan ugu dambeyntii waxaan kuu hayaa 6 qodob oo kaa caawinaya inaad isbedel samayso qodobka koowaad u fiirso naftaada baad oo dib u eeg u fiirso habdhaqankaaga iyo ficiladaada si aad u hesho caadada xun ee aad doonayso inaad iska bedesho waxaad arki kartaa inuu jiro shay aan raali ka ahayn kaasoo kugu sababi kara mushkilad joogto ah calaamadayso ficilkaas ama caadadaas kadibna u gudub qodobka labaad oo ah go'aan anigu ma booqdo hooyaday iyo aabbahay waa in aan isla hadda siyaarta oo aan u tagaa sigaarka ayaan cabaa xaalku waa inaan hadda baakidka jeebkayga ku jira aan tuuraa waxaan la doodaa walaalkay ama saaxiibkay waa inaan telefoon u diraa oo aan saaxiibkay ama walaalkay aan cafiska dalbadaa haddii aad hesho inay noloshaada qalad ku jirto oo aad ogaato inay mushkilad kuu keeni karto sida ugu dhaqsaha badan leh waa inaad go'aan degdeg ah ka qaadataa oo aad qaladaadkaas meesha ka saartaa qodobka saddexaad barasho waxaa jira arrimo badan oo aan jecel lahay laakiin bedelideedu jahliga inoo diido sida ugu fiican ee loo xalin karo mushkiladaasi waxa ay tahay inaan ku dadaalno sidii aan wax u baran lahayn marar badan macluumaadka aad ka hesho shay waxay raad weyn ku yeelataa sidii aad shaygaas ula dhaqmi lahayd tusaale ahaan marka aad akhrido dhibaatooyinka sigaarku uu leeyahay waxay taasi noqonaysaa mid kugu dhiirigelisa joojinta sigaarka sidoo kale marka aad akhrido fadliga ay salaadu leedahay iyo dayacadeeda dembiga ka dhasha waxa ay keenaysaa inaad ku dadaasho salaada gudashadeeda ku darsa akhrinta iyo barashadu waxa ay ku siinaysaa tusaalooyin aad u wanaagsan oo aad kaga dayan karto qodobka afraad weelayn dadka qaarkood waxa ay magan galaan isbedelka mar qura oo kaamil ah oo waxa ay aaminsan yihiin inay hibo iyo awood badan leeyihiin laakiinse nasiib daro dadkaasi intooda badani waxa ay dib ugu noqdaan caadadii xumayd marka loo eego dadka caado bedelista u mara si tartiib tusaale ahaan qof aan salaada tukan oo bilaabo salaada faralka ah sunnadana ku dara masjidkana safka hore ka gala oo masjidka joogtayntiisa ugu dambeeya haddana waxaad arkaysaa ruuxaas oo salaadiiba ka tegay sidaas darteed waxaan kugu celcelinayaa tallaabooyinka dhaadheeri faa'iido ma keenaan ee inta badan waxaa fiican tallaabooyinka loo qaado si tartiib markastoo aad tallaabo u qaado si tartiiba isbedelka aad samaynayso wuxuu noqonayaa mid miro dhala kaasoo keenaysa inuu aqligaaga qarsooni uu ku kaysamo oo kugu dhalisa caado aad jeceshahay taasoo bedesha caadadii hore aadan jeclayn qodobka shanaad ku celcelin joogto ah waxaad arkaysaa naftaada oo doonaysa cabidda sigaarka iyo inaad salaada iska dayso iyo inaad cunto cuntooyin fara badan oo macaan caadada cusub waxay u baahan tahay samir iyo ku celcelin joogto ah si ay nafta u duxdo oo ay naftu u caadaysato qodobka lixaad joogtayn inaad samayso caado cusub waa arrin aad u muhiim ah marka loo eego marxaladihii hore aan soo sheegnay joogtayntu waa qayb muhiim ah iska jir inay naftaada kugu yeedho joojinta joogtaynta waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelinno haddii aad horey noogu xirneedna like siina sheer gare si ay u gaaraan saaxiibo badan oo adigoo kala ah